wuu samayn jiray quraacda xaaskiisa muddo 5 sano ah, balse hal subax ayuu si lama filaan ah u mari waayey sida khudaarta loo gooyo. Markii hore xaaskiisu waxay u malaysay inuu daalan yahay oo uusan si fiican u nasan, laakiin maalmaha soo socda xaaladiisu sii xumaatay. Fiid kasta oo uu shaqada ka soo laabto, wuxuu si aamusnaan ah ugu istaagi jiray qashinka horteeda. Eeskii uu jeclaan jiray mar walbana cuni jiray, hadda marna wuu taaban waayey. Mararka qaar xitaa shaqada ayuu u bixi jiray isagoo aan telefoonkiisa wadan. Markuu ugu dambayn isbitaalka tegey, wuxuu ogaaday runta murugada leh, wuxuu qabay walbahaar iyo niyadjab, depression. Muddo 5 sano oo guur ah, David wuxuu hadba maalintii ka hore nus saac ka soo toosi jiray si uu quraac qurux badan ugu diyaariyo xaaskiisa. Wuxuu ahaa nin daryeel badan oo jacaylkiisu muuqdo oo aan qalad laga hayn. Maalin kasta marka uu shaqada u ambabaxo, wuxuu si degan ugu macsalamayn jiray xaaskiisa. Guryahooda oo shaqadiisa ka fog awgeed, wuxuu ku bixi jiray 2 saac oo gaadiid ciriiri ah subax walba. David wuxuu ka shaqayn jiray customer service ee shirkad ajnabi ah, shaqo culays badan leh. Ma ahayn oo keliya inuu xamilo canaan joogto ah oo ka yimaada maamulkiisa, balse sidoo kale wuxuu la tacaali jiray cabashooyin aan cadaalad ahayn iyo aflagaado uga timaada macaamiisha. Si kastaba ha ahaatee, wuu iska ilbixi jiray, wuxuuna qarsan jiray murugada iyo xanuunka. Culayska oo dhan wuxuu ku sidan jiray keligiis. Dhanka kale, Lisa waxay lahayd nolol ka fudud. Guriga ayay joogtay, waxayna isku dayi jirtay inay ku mashquusho sawiridda sheekooyin majaajilo comics oo ay jeceshahay. Riyada Lisa waxay ahayd in ay noqoto farshaxaniste hal abuur ah, laakiin nolosha dhabta ahi ma fududayn.